kulanti wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad naga daawanaysaan ku soo dhawaada qodobada warka ugu doorka roon dowladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta magaalada Muqdisho heshiis kula saxeexatay shirkad laga leeyahay wadankan Britain taasoo baaritaan ku sameyn doonta xaddiga uu leeyahay shidaalka la rumaysan yahay inuu ku jiro dalka Soomaaliya madaxweynaha maamulka Puntland ayaa wada hadallo kula qaatay magaalada Garowe ee xarunta maamulkaasi wafdi ka socda dowladda Ingiriiska oo horkacayay safiirka Britain u qaabilsan arrimaha Soomaaliya madaxweynaha Somaliland ayaa dekreeto ka soo saaray qaabka loo bixinayo darajooyinka ciidamada Somaliland iyadoo 10,000 oo askari xilligan ay u diyaarsan yihiin in la dalacsiyo tartan quraan akhris ah oo ka soconaya xarunta telefishinka Kalson uu ku leeyahay magaalada London ayaa la soo gabagabeeyay iyadoo tartankaasi caruurtii kaalimaha ugu horeeyay gashay ay hadiyado guddoonsiisay shirkadda xawaalada London Express wararka caalamkana waxa ugu waaweyn dowladda Mareykanka ayaa shaacisay sababaha keenay in la xiro qaar kamid ah safaaradaha iyo qunsuliyadaha ay ku lahayd bariga dhexe iyo waqooyiga Afrika xilli la rumaysan yahay in sirdoonka Mareykanku ay ku guuleysteen inay dhageystaan codad la sheegay inay iskula hadlayeen madaxda ururka Al-Qaacida Afghanistan iyo kuwa Yemen wararka sportiga ayaa sidoo kale aanu warkeena idinkugu faahfaahin doonaa iyadoo wararkii ugu dambeeyay suuqa kala iibsigana aanu idinkugu hayno wararka caalamkana waxa ugu waaweyn dowladda Mareykanka ayaa shaacisay sababaha keenay in la xiro qaar kamid ah safaaradaha iyo qunsuliyadaha ay ku lahayd bariga dhexe iyo waqooyiga Afrika xilli la rumaysan yahay in sirdoonka Mareykanku ay ku guuleysteen inay dhageystaan codad la sheegay inay iskula hadlayeen madaxda ururka Al-Qaacida Afghanistan iyo kuwa Yemen wararka sportiga ayaa sidoo kale aanu warkeena idinkugu faahfaahin doonaa iyadoo wararkii ugu dambeeyay suuqa kala iibsigana aanu idinkugu hayno warka